Filimka waxa uu ku bilaabanayaa habeenimo labadan tuug Miles iyo Eddie oo isku diyaarinayo inay xadaan Diamond joogo 17 milyan oo dollar. Waxaa caawinayay Deacon oo xil saarnaa inuu CCTV-ga ka indhaindheeyo iyo Tully oo banaanka ku sugayay si ay si dhaqso leh meesha uga baxsadaan. Eddie iyo Miles waxay gudaha u galeen dhismaha ayagoo raacayo tubooyinka hawada qaado. Kadib markii uu Eddie caawiyay Miles ayuu isaga soo baxay meesha, balse Deacon ayaa la soo baxay waji cusub, wuxuuna sheegay inuusan rabin in lacagta lala qaybsado. Kadibna waxa uu toogtay Eddie. Nasiib xumo, Eddie meydkiisa wuxuu ku kordhacay gaariga booliiska, waxayna taas keentay inay booliiska meesha waxa ka socdo ogaadaan. Tully markii uu arkay arrinka qasan ayuu meesha isaga soo baxsaday. Gudaha dhismaha Miles wuxuu kala soo baxay Diamond-kii, laakiin banaanka wuxuu uga tagay Deacon oo ka dalbaday inuu ku soo wareejiyo asaga Diamond-ka. Intay hadlayeen waxaa kor timaaday diyaaradda booliiska. Deacon-na waa uu baxsaday. Miles waxa uu raacay xarigan oo uu ku galay dhismahan aan la dhammaystirin. Kadibna wuxuu ku qariyay Diamond-kii meesha hawada ka soo gasho dhismaha. Ugu dambeyn waa la soo qabtay Miles. Intii ay booliiska jeebadeenayeenna wuxuu calaamadaystay meeshii uu Diamond-ka ku qariyay. 2 sano kadib Miles waa la soo daayay kadib markii uu soo qaatay xukunkiisa. Asagoo u xiisay saaxiibtiisa Janice ayuu go'aansaday inuu aado gurigeeda, balse nasiib darro qoftiisii wayba ku booday ayadoo u sheegtay inay og tahay inuu yahay tuug. Inkastoo uu u sheegay inuu howlahaas mar hore iska dhaafay, haddana Janice waxay ugu jawaabtay una sheegtay inaysan rabin aragtidiisa iyo inay tahay shaqaale bangi haddadan la joogo. Nasiib darradiisa halkaas kumaysan ekaanin. Dhismihii uu ku dhex qariyay Diamond-kii uu soo xaday hadda waxaa laga dhigay police station, mana uusan iska gali karin. Laakiin Miles ma uusan ka niyad jabin inuu gudaha u galo dhismaha, wuxuuna iska soo dhigay sida ninka biisaha keena oo kale, asigoona muuqaalkiisii soo bedelay si aan loo aqoonsan. Balse nasiib darro, askarigan ayaa u diiday inuu iska galo meel kasto sida uu rabo, waxaana loogu daray in qofna uu dalbanin biisahan uu wado. Inta aanan la fahmin ayuuna u tagay askarigan oo la dhaho Carlson, wuxuuna biisihii uga tagay askariga asigoona u sheegay inuusan biisaha ku aaminaynin askartan kale, laakiin ficilkiisa oo dhan wuxuu ahaa qorshe uu doonayay inuu ku xado ID-ga Carlson. Maalintii xigtay wuxuu u tagay mid ka mid ah asxaabtiisa oo la dhaho Adeer Lou, wuxuuna weydiistay inuu u sameeyo ID-ga Carlson oo kale iyo dokumentiyo been ah kuwaasoo caddaynayo inuu yahay askari loo soo bedelay qaybtan. Wuxuuna u sheegay sababta uu askari been ah isaga dhigayo inay tahay inuu Diamond-kii uu xaday uu ku jiro station-kan. Si dhaqsi leh ayaa lagu sameeyay ID-gii si uu u barto qaababka loo xiro dambiilayaasha. Ayuu sameynayay wixii uu ka arkay documentaries-ka. Ficilada uu sameynayana waxay ahaayeen kuwa qosol leh. Adeer Lou ooba ahaa mid ku takhasusay sameynta kaararka fake ah iyo documentaries-ka ayaa Miles kula taliyay in askarta aysan akhrisan documentieskiisa haddii kale lagu fahmi doono si fudud. Kadib isdiyaarintiisii, Miles oo hadda kalsooni isku qabo oo wato faylashiisii iyo ID-giisii aqoonsiga ayaa soo galay station-ka, wuxuuna si toos ah u aaday qaybta dhismaha hawada ka soo gasho, halkaas oo aaminsanaa inay tahay halkii uu ku xaseeyay Diamond-kii. Hadda kaliya waxaa u dhiman inuu galo hawaqaadayaasha, waxayna ku tahlay musqusha dumarka. Isla waqtigaas Carlson wuxuu su'aalo weydiinayay dambiilihii ayaana weydiistay Carlson inuu wax yar ka dabciyo jeebada, kadibna waa uu khiyaanay oo waa uu ka baxsaday. Nasiib, dambiilihii waxa uu soo galay musqulihii dumarka oo ahayd halkii uu ku jiray Miles, balse Miles oo markaasba furay albaabka meeshii uu ku xaseeyay Diamond-ka oo raadinayay Diamond-kii ayaa intuu soo degay haraanti isaga dhuftay albaabkii musqusha si qaylada u yaraato, balse wuxuuba gacan ka geystay soo qabashada dambiilihii. Wuxuuna isku sheegay inuu yahay Milan, askari cusub oo halkan loo soo bedelay. Madaxa booliiska oo la dhaho Rizzo ayaa ka shakiyay albaabka hawada ka soo gasho oo furan, balse Milan ayaa awooday inuu ka dhaadhiciyo in dambiilaha uu doonayay inuu halkan ka baxsado. Rizzo-na wuuba aaminay. Nasiib darro, Milan oo rabay inuu noqdo askarta joogto xabsiga ayaa loo diray howl tuugnimo oo ka dhacday banaanka asaga iyo Carlson, taasoo la micno ahayd inuu banaanka inta badan ka shaqayn doono. Amarkii ayuuna qaatay. Asiga iyo Carlson-na waxay tageen meel geerish ah, halkaasoo ninka geerishka iska lahaa uu sheegay in laga xaday 3 darsin oo ah digsiga taayarka baabuurka oo midkiiba qiimihiisu yahay $5,000 oo dollar, laakiin lagama xadin kuwii raqiiska ahaa. Carlson wuu ku wareeray kiiska. Dhanka kale, Milan ooba ah tuug ayaa asna sheegay fikirkiisa, asagoona yidhi ka soo qaad tuugga waa aniga, laakiin 3 darsin oo digsiga baabuurta ah waxay qaadani waqti badan in la xado. Wuxuuna ka shakiyay inay alaabtan ku jirto isla gaariga ninka geerishka uu leeyahay oo banaanka yaalay. Arrintiina way rumowday. Halkaas ayuunu ku xaliyay kiiskoodii ugu horreeyay asaga iyo Carlson. Noqoshadoodii, Milan oo ku caajisay sida Carlson uu gaariga u wadaayay ayaa markan ka codsaday Carlson inuu asaga gaariga kaxeeyo. aad ayuuna ugu faraxsanaa wadida gaariga booliiska, qaasatan markii uu yahay askari been ah, wuxuuna dareemayay inuu yahay mid sharciga ka sareeyo. This is the police. When was the last time you had every once in a while? All up on it. Be some speed.
waddada dhexdeeda waxay kula kulmeen gaari shil galay. Carlson ayaana go'aansaday inuu aado halka uu shilka ka dhacay, laakiin Milan wuxuuba iska doontay daawo madax xanuun. Nasiib daro, tuug ayaa soo galay isla dukaankii uu ku jiray Milan. Dukaanlihiina wuxuu la soo baxay qori oo halkaas waxaa ka bilaabatay israsaaseen. Carlson oo maqlay xabadaha ayaa soo wargeliyay askarta. Dhanka kale, Milan wuxuuba iska dhex raaxaysanayay dukaanka dhexdiisa oo ficiladan oo kale waxay ahaayeen kuwa uu la qabsaday. La yaab, tuugga waaba Milan saaxiibkiisa Tolly. Milan oo rabin in askarta ay fahanto ayaa u sheegay Tolly inuu baxsado, wuxuuna ka baxay albaabka dambe. Nasiib daro, waxaaba meesha soo gaaray mar hore booliiska inta uusan baxsan. Ugu dambeyntiina, Tolly wuxuu galay xaalad adag. Milan oo rabin in banaanka la keeno sirtiisa ayaa la galay dhiil ah inuu askarta isku dhiibo oo uu beddelkeeda asaga lacag siin doono. Kadibna wuxuu garaacay Tolly si uu isaga dhigo askari dambiile xiraayo oo kale. Ficilkii uu sameeyay Milan ayaana noqday mid ka dhigo askarta dhexdeeda haliyay. Si walbaba ha ahaatee, Rizzo ayaa bilaabay inuu ka shakiyo, sababtana waa inay far ku doogan tahay aqoonsigiisa, balse waxaaba hadda laga dhigay askari u xil saaran dhanka iyo soo qabashada tuugada. Kadib arrinkaasna wuxuu gudagalay dantiisa oo ahayd raadintii diamondkii uu soo xaday, balse markii uu galay meesha wuxuu kaliya helay shuruudo ku dhegsan derbiga. Dhanka kale, Adeerlo waxa uu imaaday Deacon oo raadinayo Miles. Inkastoo Adeerlo uu u sheegay Deacon inuusan arag Miles, haddana wuxuuba helay koobigii ID-gii uu u sameeyay Miles. Dhanka kale, Milan oo wali la yaaban meesha uu aaday diamondkii ayaa isticmaalay gaariga remote-ka si uu ugu raadiyo meesha oo dhan, balse intii uu raacayo jihada uu u socday gaariga remote-ka ayuu si lama filaan ah u galay qol ay booliiska oo dhan shir ku wada qabsanayeen. Halkii ayuu isugu sheegay magaciisa, wuxuuna si la yaab leh u awooday inuu uga jawaabo su'aal walba oo la weydiiyey. Ugu dambeyntiina waa loo sabciyey. Markii uu ku soo laabtay ofiiskiisa ayuu sii gudagalay raadinta diamondka, balse hal mar waxaa u soo galay Carlson. Wuu isku naxay. Waxaa argagax gelisay markii loo sheegay in laga waayo xogtiisa booliiska oo idil xogtooda ama daatada booliiska. Laakiin waxaaba la yaab ahayd markii uu Milan oo ah nin aad ugu wanaagsan hadalka uu ka dhaadhiciyay Carlson inuu yahay askari qarsoon oo loo soo diray inuu basaaso askarta laaluushka qaadanayso, sidaasna looga waayay magaciisa xogta askarta ku saabsan. Isla markii waxaa meesha imaaday Rizzo oo u dilay shaqo cusub Milan, taasoo ahayd inuu soo baaro kiis xaditaan alaab qadiimi ah oo ka dhacay eelaboorka. Imaanshihii eelaboorka, Milan waxaa meesha ku sugayay askari FBI ah oo la dhaho Gray. Milan waxa uu dareemay inay wax ka qaldan yihiin kiiskan kadib markii uu arkay alaabihii qadiimiga ahaa oo burbursan, wuxuuna hubay in kiiskan uusan ahayn xadid, laakiin uu yahay gudbinta alaabo mamnuuc ah oo lagu hoos qarinayo gadida alaabahan qadiimiga ah. Milan ooba ah dhab ahaantii tuug ayaa si cad u og habdhaqanka tuugada. Kadibna wuxuu raadiyey taraag la sheegay inuu waday caddeemo. Booliiskana waxay awoodeen inay soo qabtaan taraagaas lagu soo raray alaabaha mamnuuca ah. Halkaas kumuusan ekaanin Milan ee wuxuu soo qabtay xataa ninkii taraaga waday oo baxsaday. Qolka lagu keediyo caddeemaha ee ku yaala police station-ka, Milan ayaa bilaabay inuu ka baaro saqafkiisa diamondkii. Aad ayuuna ugu farxay markii uu helay, balse waxaa isla markii soo galay Rizzo. Naxdin awgeedna ayuu diamondkii oga dhacay alaabtii mamnuuca ahayd. Nasiib xumadiisa haddana waxaa loo sheegay in alaabtan loo qaadi doono FBI-da si loogu sameeyo baaritaan dheeri ah. Waxaana ogaanaa in alaabtan uu leeyahay tuug weyn oo la dhaho Jean Leveler, kaasoo 5 sano ee ugu dambeysay taagad u ahaa FBI-da. Milan oo rabin inuu dhumiyo diamondkiisa ayaa Rizzo u soo jeediyey inay alaabtan ku hayaan police station-ka, balse Gray ayaaba u sheegay in asaga uu kaxeeyo gaarigan ay saaran tahay alaabta mamnuuca ah si loogu dabo tuuga weyn. Milan oo rabin inuu dhumiyo diamondkiisa ayaa ogolaaday isdiyaarin. Kadibna Gray ayaa siiyey tilmaamo iyo inuu dadkaas ula dhaqmo sidii tuuga oo kale. Laakiin Milan wax dhib ah kuma ahan iska dhigidda tuug, waxaana la gudagalay hawsha. Kadib waxaan aragnaa Deacon oo banaanka ku sugayo Milan si uu uga qaato diamondkii. Markii uu soo gaaray meeshii ballanka ahaa, intii uu gaariga ku jiri lahaa sidii loo sheegay, iska raadsaday diamondkii uga jiray alaabta dhexdeeda. Markii uu la soo baxay diamondkii, waxaa lama filaan ku noqotay imaanshiyaha saaxiibkiisa Tolly, kaasooba maanta oo dhan soo daba socday. Haddana isla markiiba wax yar kadib waxaa meesha imaaday Deacon oo wato bastoolad. Halkii ayuuna diamondkii uga qaatay. Ayagoo xaaladaas ku jiro, waxaa ka sii naxiyey markii si lama filaan ah loo qaaday taraagii oo dhan. Waxaa si toos ah loogu geeyey tuugii lahaa alaabta ee Jean Leveler. Deacon ayaana Jean Leveler u sheegay in Milan uu yahay askari isqarinayo,
Lafler oo rabay inuu ogaado runta ayaa Milan u dhiibay biskoolad si uu u togto Deacon uuna isku cadeeyo inuu ahayn askari. Milan oo qaatu billahi ka taagan Deacon ayaa isla markiiba asoon ka labalabeenin gacanta ku dhuftay, laakiin Jean ayaa u sheegay inuu ninka si fiican u toogto. Milan oo toogan rabo ayaa askartii xabad fureen, meeshiina waa lagu kala cararay. Deacon waxa uu la baxsaday diamondkii asagoo isticmaalayo gaariga booliska. Gaari isciirsi ayaana dhacay, balse intii la isbursanayay FBI-da iyo askarta ayay xaaladda ku adkaatay sababtoo ah gaarigii Deacon uu watay waxa uu dhaafay xuduudda Mareykanka wuxuuna galay Mexico, mana u lahan awood inay soo qabtaan Deacon oo dhaafay xuduudooda. Dhanka kale, Milan oo ah Miles oo aanan ahayn askari balse tuug rabo inuu soo ceshto diamondkiisa ayaa dhaafay xuduudda asagoo khilaafay sharcigii oo dhan, wuxuuna awooday inuu la gediyo gaariga Deacon, balse askarta waxay u maleynayeen inuu la gorgortamayo sidii markii hore oo kale. kadibna intuu diamondkii ka soo qaatay ayuu jeebadeeyay. Deacon ayaa damcay inuu dilo Miles, balse xabadii ayaa lagala hormaray oo sidii ayaa lagu dilay Deacon. Askarigan ah madaxa FBI-da iyo askarta oo dhan ayaa isweydiisay waa kuma askarigan aan laga haynin wax macluumaad ah, balse markan Miles ayaa u sheegay Rizzo iyo askartii kale inuu yahay askari Mexican ah oo loo soo diray inuu basaaso Jean Lafler, wuuna sagootiyey. Waxyar kadib Carlson iyo askari kale ayaa soo daba orday. La yaab, Carlson oo markasta maskiin uu khiyaano ahaa ayaa u sheegay inuu og yahay wax kasta iyo inuu boolis u noqday si uu dib ugu helo diamondkii uu xaday. Markuu maqlay Miles arrinkaas ayuu isku naxay, mana uusan isdhehaynin Carlson ayaaba wax ka og. Waxaana loo sheegay in la xiri karin hadda, ayna sababtu tahay inuu ku jiro waddanka Mexico. Ugu dambeyn, Miles ayaa meesha isaga tegay asagoo faraxsan. Filimkana halkaas ayuu ku dhamaaday.